بالعالمين labadii bishii 2014 magaalada Johannesburg waxaa lagu aasaasay ururka dhalinyarada ee Jubaland Youth League JYL ee Koonfur Afrika. ururku xilkiisa wuxuu ahaa hal sano golaha fulinta iyo golaha shuurada, xilkiina wuxuu u ekaa labada bishii 2015 bishan hadda aan ku jirno. warqad ka soo baxday markay wada tashteen golihii fulinta iyo golaha shuurada, warqad ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha ururka waxaa lagu qeexayaa in ururka loogu daray muddo 3 bilood ah howlo qabyo ka ah awgood. anigoo ah afhayeenka ururka dhalinyarada ayaan waxaan caddeynayaa in dhammaan dhalinyarada ku nool Koonfur Afrika iyo inta ururkan taqaanay iyo inta ururkan xubnaha memberka ah in ururka loo kordhiyo muddo 3 bilood kadibna insha Allah uu isugu imaan doono doorashada iyo xil wareejinta maamulkii hore laguna dooran doono insha Allah maamul cusub. dhammaan waxaan u sheegayaa ummadda reer Jubaland iyo dhalinyarada midnimo iyo inay insha Allah noqdaan dad hal ah. sidoo kale waxaan baaq u dirayaa dhammaan dadka ku nool saddexda gobol ee Jubaland isugu magac daray inay iyaguna ka tashtaan aayahooda. dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtana dhalinyarada waxaan leeyahay mustaqbalkiina ka tashta, qabiil waxba ma taro, waxana sidana waxba ma tarto. niman yahow mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed inay dhalinyaradu maanta u istaagto ayaan u sheegayaa kana codsanayaa nin walba uu fikiro horay inuu ummadiisa wax ku soo kordhiyo. dhalinyaro ayaa adduunka wax ka bedesho, marka sidii wax ku bedeli lahaayeen falkeeda inay galaan. السلام عليكم.